waxaan idiin sheegayaa anugu haddaan ahay Somalilander ama aan beesha isaaq ahay iidoor haddaan ahay qadaadweyn iyo ma maqli karo mana arki karo nin waxa la yiraahdo jareer iyo raxaweyn iyo qurun runta idiin sheegaya raxaweyn anu Soomaalidu ma aqaan yuhuud baan u aqaan gaal aan u aqaan anigu ninka raxaweyn haddii aan dilo xita dhiigiisu way banaan yahay inaan gumaado dhiigiisu way banaan yahay because waa jareer xun oo tima adag oo Zanzibar laga keenay iyo Tanzania loo inaan gareyn Nigeria oo qurun ah oo uskaga weeyaan arxan male dadnimo male Soomaali maaha dhaqan maaha ila dilana waan ku baaqaynaa waxaan ugu abaal celinaynaa oo ugu mahad celinaynaa walibana dawladda Somaliland iyo mujaahid Muuse Biixi Cabdi Xildiid ala aabiyo jareertiinaba ku yaal doofaaraati war anu idima kala jeceli balan waxaan ku qaadaya hadda imika waxaad ka hadlaysaan cid baa la soo rarayo cid baa maartay deegaan laga soo qareebad yani imika ka hadlaysaan inta ka hadhay ee jareer ah ee timaweyn ah ee bantu ah ee qadaadweyn ah hadda idin sheegaya ee hargeysa burciyo berbero ku hadhay waan xasuuqayaaba oon gumaadayaaba meydkoodan ku dulkaajaya nacala aabihiini qadaadweynba ku yahay war anu idima jeceli anu isaaq baan ahay Somaliland baan haystaa qadaadweynna ma jeceli Puntland iyo Puntland iyo Majeertaan iyo qurunna ma jeceli hawiye futa madowna ma jeceli ila jecelahay malaha runta idin sheegaya wasakh baatihin waan inu gumaadaya haddaan inu gumaadin oo aanan meydkiina intan kurka ka gooyo dhiigiina aan kaba ku baalashaysan waa ladantihiinba because amxaaratihin aniga qadaadweyn iyo bantu iyo qurun iyo koonfur iyo Majeertaan iyo balaaye shawaadiintaas oo dhan aniga waxa iga dhow oramada iga dhow ninka orama hargeysa waan ku deenaya berberiyo burco waan ku deenaya أبلان وأنا كشك سنة ولا نيالو ويل كان يرحض ليو هذا الكوكو هذا وهذا الوين ولا صديبي موسى بيحي إيو فيصل علي ورابع يا صديبين أرم كي موسى بيحي أول بإثيوبيا وإثيوبيا كل شيء معها صومالنا شعب صومالنا وشعب جبا وشعب صوماليات وأصيلة وأصلة ومعيتي وحنا كسورتو مركو عنو كان يرو ماركتي ولا وحاوي ديجودل وأي حلال نمكا وحاوي وقالو ويهود كهايو وهذا اللي صار ديبي لما يابو ويل صوماليات ديك صوماليات ذا وإلى دكور رويا هاي صومالي نمذا يسلام نمذا يعني كجرتو لما يابو إنه وحكوا هذا مركا وحاوسو ديبي أرمكي موسى بيحي oo qorshaha uu doonayo oo rabo inuu ku fuliyo oo maxay dadku isku diro oo cunsuriyad uu kiciyo Muuse walaalayaal qorshihiisa waxa weeye wuxuu rabayaa inuu ka dhigo Somaliland kelinka 12aad ee Ethiopia si fiican u dhageysta hadalkayga si fiican u dhageysta si fiican u dhuuxa Muuse wuxuu doonayaa inuu ka dhigo Somaliland kelinka 12aad ee Ethiopia wuxuu rabayaa inuu Somaliland أما الشعب كان جمهورية سوماليلاند الشعب كصوماليات ولا الله هذا إنه ملح سكون جريو إسناعسيو ومحية حدود قبيلات لسمايستو وحق أنا لقصو إريو نمنكي سوماليلاند ولا عليها نشكلها ووين كلها كان عصد ووين كلها دهبشير يلا دكور رويا هاي صوماليلاند يو نمنك لك محية رير جلدة يو نمن مارك الجوريان بيج وقبل كمارك كونفر سوماليا كلها لقصو إري أي دونيان ولسنعوه لسدلو ونعيب لسكو قاضو meeshana oroma maaragtay lagu beero iyo xabashi lagu beero barina maaragtay liiraado ormada waxay halarge bay yiraahdaan waa hargeesa waa haragi oo dameerka yiraahdaan har waa dameer bay yiraahdaan geesana waa geedka dameerka lagu jiido marka ormada waxay aaminsan yihiin hargeesa inay ayaga leeyihiin marka walaalayaal sheekadan waa sheeko Muuse Biixi iyo ninka la Faysal Al Waraaba ay ka dambeeyaan wax shaqo kuma lahan shacabka Soomaaliyeed ee Somaliland degan waa gob dhashay marka dhibaatada waxa wada walaalayaal waa oromkan Ethioopiyaanka Ethiopia lagu dhalay Muuse Biixi la yiraahdo ihraadigii jabadii SNM ee falaagada ahayd ayaa wada marka waxaan leenahay aan laga digtoonaado arintan oo kale hal iska ilaaliyo baan leenahay waxay dhalinaysaa dhibaato bay dhalinaysaa oo isku dhac bay dhalinaysaa in Soomaali maartay isku dhacdo oo maxay dadka Soomaaliyeed ay kala fogaadaan ay keenaysaa taana waxa way dan ugu jirto idinkana dan idinkuma jirto anagana dan ugu jirto Soomaali ma kala gooyso مهما كان وهو البلا سمايو ما كلا تجينه ما كلا تجينه أرمض على سوء إليكسو Muuse Biixi وكلا وعرب على كانوا لكن أنا وحدي دبنا قاعد أنا برنا كلا تجي دوني أنا كلا تجينين مرنا عن كلا تجي دوني
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن وعن سوري وهذا خير ميل بجوكتان سيدات مقريسين هير وحال قاري مانتا إن ديجي يشرفتي كرامدي دad Soomaaliyeed la banaysto waa arrin aad iyo aad u muruga ah waa arrin tan oo kale waxa way musiibo haddaad maqashaan waa tan oo kale in dad Soomaaliyeed oo ehel ah oo wax kasta maanta ka dhaxeeyo oo maanta wax walba xiriir ganacsi ka dhaxeeyo xiriir maaragtay islaamnimo walaaltinimo Soomaalinimo ka dhaxeeyo in sidaan loola hadlo horta wax aad iyo aad looga xumaado wiilka hadlayay walaalayaal iskama hadlin wuxuu ku hadlay waa waxa uu aaminsan yahay Muuse Biixi wuxuu ku hadlay afkii Muuse Biixi buu ku hadlay afkii Faysal Cali Waraab buu ku hadlay afku wuxuu ku hadlay kooxda jabhada SNM ee falaagada ah ayuu ku hadlay wiilka hadlayo wuxuu maqlay buu sheegay wuxuu ka maqlay adaaradiisa Muuse iyo wixii lamid ah ayuu sheegay wuxuu ka maqlay sidoo sheegay iyo doorka kuwa mas'uuliyiinta anagu shacabka Soomaaliland oo dhan oo aad ma saarayno wuxuu maqlay in dadka qadad weyn la yiraahdo ama reer koonfur galbeed ama Soomaali koonfur la yiraahdo ama jireer dadka ay yihiin dad maaragtay loo hooyana sida Faysal Cali Waraab shalay aan ka dhageysanay muuqaalkiisa wuxuu yiri dadkan loo hooyaanka marka wiilka yar waa lagu tarbiyeeyay tarbiyad mucafana tarbiyad waxa weeye oo khasiis ah tarbiyatul kalb oo mal'uuna ayaa lagu tarbiyeeyay waxaan rajaynaynaa marka shacabka Soomaaliland in caruurtooda ku tarbiyeeyaan Soomaalinimo inay ku tarbiyeeyaan islaamnimo walaaltinimo ay ku tarbiyeeyaan Soomaali ma kala tagayso haddii Faysal Cali Waraab iyo Muuse Biixi iyo afar qof oo maaragtay haraadiga jabhadii SNM ayagu ay maaragtay yani ay falaagoobeen oo Soomaali naceeb maskaxda ka gashay laakiin waxaan idin sheegaynaa shacabka Soomaaliland boqolkiiba 85 ama 90 inay yihiin dad nadiif ah dad wanaagsan dad goob ay yihiin walaalayaal waa wax aad looga xumaado lagana yaxyaxo in meeshii axmaara joogta Tigray baa jooga ilaahay ku rooyahay Oromo buuxda Yemen baa buuxda Hindi baa buuxda Bangladesh baa buuxda in Soomaali kaligeeda sidaan loo cunsuriyeeyo oo sidaan loola hadlo oo sidaan maaragtay sidaan yani sharaf darada maanta meesha taala maamulkan ilaahay maaragtay maanta u keenay bal fiiriya waxaas wax raali laga noqonay ma walaalayaal dadkan waa dad isdhex degan wiilka yar oo cugdada laga buuxiyay iyo kuwa lamidka ah war anaga hadaan rabno shirkadihiina iyo ganacsigiina goboladeenay buuxaan baydhabay buuxaan xamaray buuxaan kismaayay buuxaan gaalkacyay buuxaan beledweynay joogaan jawharay maaragtay joogaan markay meel walba way buuxaan laakiin anagu gobti Soomaaliyeed baan nahay dadkii Soomaalinimada looga imaanay Soomaali jacayl baa wali nagu jira Muuse iyo haraadiga jabhada SNM waxay doonayaan inay isku keendiraan Soomaali maaragtay laga wada qarxiyo oo Soomaaliland maaragtay laga dhigo kelinka 12aad ee Ethiopia laga dhig ayay doonayaan oo Ethiopia lagu beeriyo Muuse walaalayaal markii horeba Ethiopia ku dhashay waa Ethiopian ku dhashay wuxuu doonayaa marka inuu dadkan waa Oromo waay marka wuxuu doonayaa in Soomaali oo Soomaalida asalka Somaliland ama dalka iskale iyo Soomaalida koonfur isku diro oo madax isku geliyo kadibna meesha ay ka qaraxdo oo ay yiraahdaan maaragtay dadkii la isnaaco sidaan maaragtay Ethiopia looga beeriyo maxay maamulka ayaa la doonayay marka taasi ma dhacayso hay'aad ma dhacayso shalayna anaga xoreynay anaga afweyne ka xoreynay Somaliland maantana anaga ka xoreynayna haraadiga jabhada SNM axmaarada la shaqeeyo daba dhalafka ah
iyo kuwa cugdada dishayna anaga ka xoreynayna biidin ilaahi kariim almaad soo socda marka walaalayaal waxyaabahan oo kale yaan caruurta la baqashinin dad maangaab baa jira oo koonfur galbeed ka soo jeeda ama qadadweyna ama jareera baa jira waxaan hadday maqlaan qof walba oo nawda ku hayo oo maxay ahaatee oo isaaq baanahay haddana isma qariyaan dadka majaardaanka iyo nimanka iyo qowmiyadaha qabiilada kale way isqariyaan laakiin ayagu ma qariyaan war anigu reer isaaq baanahay oo maxay ahaatee habar awal baanahay habar yunus baanahay iyo saacad muuse baanahay isma qariyaan marka walaalayaalow dadkiina dad ha ku dirin dadkiina ummadda ha ku dirin idinkuna ha dulaynin dadkaan ha dulaynin baan leenahay waana ka xunnahay waana cambaaraynaynaa cunugan yar hadalka loo soo dhiibay waxaa weeye aad baan u cambaaraynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hana sheer garay barnaamijkan waan mahadsantihiin